waxaan rabaa maanta inaan idiin soo gudbiyo macluumaad ku saabsan 5 guri ee ugu quruxda badan caalamka. Guriga koowaad waxaa noqday Palazzo Antonella, waxa uu ku yaalaa Hindiya, gaar ahaan Mumbai. Gurigan quruxda badan waxaa iskale ninka taajirka ee la yiraahdo Mukesh Ambani, waana ninka afraad ee ugu taajirsan gudaha Hindiya. Gurigan waxa uu ka kooban yahay 27 biyano, qolka uu ka kooban yahayna waxa ay gaarayaan 143 qol. Shaqaalaha ka shaqeeya sidoo kale waxa ay gaarayaan 600 oo qof. Guriga labaad South Cake waxa uu ku yaalaa caasimadda Australia ee Sydney, waana guriga ugu quruxda badan dalka Australia. waxa uu ku yaalaa badda dhexdeeda. Dhismahani waxa uu ka kooban yahay 1,000 mitir oo square. sidoo kale qolalkiisa ayaa waxa ay gaarayaan 250 qol. shaqaalaha ka shaqeeya sidoo kale gurigani waxa ay gaarayaan 720 qof. Guriga saddexaad ee ugu quruxda badan caalamka waxaa noqday Versailles, waxa uu ku yaalaa USA ee magaalada Florida. Gurigan quruxda badan waxa uu ka kooban yahay 30 qol oo iskugu jira qolal jiifa iyo kuwa VIP ah. Qolalka qabiiska uu leeyahay gurigan waxa ay gaarayaan 23 qol. waxa kale uu leeyahay meel carruurta ay ku ciyaaraan iyo waliba garaash qaadaya 20 gaari. Guriga afraad ee ugu quruxda badan caalamka waxaa noqday Malawan Residence, waxa uu ku yaalaa dalka USA ee magaalada Florida. Gurigani waxa uu noqday gurigii ugu quruxda badnaa sanadii 2017, waxa uuna ka kooban yahay 24 qol oo jiif ah, 14 qol oo kuwa qabiiska, 13 qol oo qol fadhi ah, 12 qol oo VIP ah. qarashka ku baxay gurigani waxa uu gaarayaa 125 milyan oo dollar. Guriga shanaad Starwood Estate, gurigani ayaa noqday guriga shanaad ee ugu quruxda badan caalamka. Gurigani waxa uu ku yaalaa USA, gaar ahaan magaalada Aspen, Colorado. Gurigan quruxda badan waxa uu ka kooban yahay 25 qol oo iskugu jira kuwa jiifa iyo kuwa VIP ah. waxa kale oo uu leeyahay 11 qol oo ah kuwa qabiis ah. sidoo kale gurigani waxa uu leeyahay garoon yar oo lagu ciyaaro baseballka. hana ilaawina subscribe-ka iyo gambaleelka si aad ula socotaan macluumaad kale oo dheeri ah. waa mahadsantihiin.